السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة إقاية مدن وصاحبكن صاحبه في إذا مركز أجوكتان نمطكن ولادا haddii aan ku bilowno filimka loo magacaabo fighter oo hirti corruption uu ka yahay hogaamiyaha sare Deepika Padwan iyo Anil Kapoor ay la wadaagaan. Filimkan sheekooyin ka soo kordha waxaa kamid ah in actionkiisa la isku haysto waliba uu yahay kan ugu sareeya action film la sameeyo. Sidaad Anand oo filimkan director ka ah uu hagar baxay sida la sheegay waliba si aan caadi ahayn sababta wuxuu sameeyay filimkii waa Bataan iyo Bangi filim kasta oo asaga uu sameeyay actionadiisa way ka sii dareen filimka ka sii dambeeyay. Filimkan wuxuu sheegay inta film uu soo sameeyay action ahaan inuu ka sii fiicnaan doono waliba qaabka lagu dagaalamayo diyaaradaha hawada sare waxa uu sameeyay hirti corruption waxa uu sameeyay Anil Kapoor sidoo kale Deepika waxyaabaha ay sameynayso waxyaabo macquul aan ahayn aqligan aan soo koobi karin. Shakhsiga lagu magacaabo Parvez Sheikh oo uu waramay shabakada Zoom ayaa sheegay filimkani in la geliyay juhdi fara badan waliba sadad waxyaabaha uu leeyahay la sameeyay in ay yihiin waxyaabo aan caadi ahayn asagoo waliba dhahaya filim kasta hore aan u sameeyay waxaan rabaa filimka dambe inuu ka action fiicnaado waliba wuxuu sheegay filimkan inta la sameeyay in ay soo wajahdo halis fara badan hase haatee ay ka gudbeen ugu dambeyn filimkan wuxuu soo bixi doonaa 2024 bisha koowaad. Dhankan haddii aan fiirino filimka la wada sugaya Badmian Jodmian oo aktarinta ay ka yihiin Akshay Kumar iyo Tiger Shroff ayaa waxa soo baxay filimkani awood ugu badan inuu ku leeyahay ladarka caanka ah ee lagu magacaabo Prithviraj Sukumaran. Ninkan oo ah nin awood badan filimkan waliba lagu siiyay in uu yahay nin aan hal qof iska celin karin waa sababta isku kaashanayaan Akshay Kumar iyo Tiger Shroff. Ninkani waa nin saynisyahana filimka uu ku jilayo waliba aqli badan wuxuu sameystay robot iyo drone taasoo keenta Prithviraj Sukumaran inuusan ku aadi karin hal qof Akshay Kumar kaliis ku aadi karin ama Tiger Shroff kaliis uusan ku aadi karin. awoodda oo haysta darteeda filimkan waxa loo sameeyay labada actor inay iska kaashadan karaan waliba kadib asaga ay ka guuleysan karaan wuxuu haystaa awood ugu balaaran ilaa la siiyay. filimkan shaqadiisa deertan waa ay socotaa ugu dambeyn wuxuu soo bixi doonaa 2024 iyo Dulfitriga ayuu ku toosan yahay. kaaga daran Prithviraj Sukumaran filimkan wuxuu ku matalayaa sirdoon waliba aqli badan wadan kastana tagay waxyaabo badan oo ficil ahna sameynaya asagoo isticmaalaya droonkiisa iyo robot-ka yar oo haysto. filimkan markii laga soo tago Tiger Shroff iyo Akshay Kumar waxa xiiso u siiyay waxay tahay Prithviraj Sukumaran awoodda la siiyay ee qaabka loogu hortagi doono iyo sida loo soo qaban doono. dhanka kale haddii aan fiirino ninka lagu magacaabo Junior NTR ayaa ka soo laabtay Dubai inkastoo muddo fara badan meeshaas uu joogo waliba nasiino uu ku soo qaadanayay hadda madaxa uu soo degsaday wuuna soo laabtay laakiin wuxuu la soo laabtay inuu bilaabi doono filamaan badan oo taxane ah kuwaasoo ah kuwa action ah waliba isku qaban doonaan aktarada ka soo jeeda Bollywoodka. filimku waxa la feeraad waxaan isku qaban doonaa ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan ninkaasoo muddooyinkan dabir asagana aan shideynin waan arki doonaa wax kala qabsado. sidoo kale wuxuu film la sameeyay ninka lagu magacaabo Hirti Corruption superstar-ka caanka ah filimkaas oo ah War 2 haddii warkii koowaad ay soo sameeyeen Tiger Shroff iyo Hirti Corruption hadartan waxa sameeyay Junior NTR iyo Hirti kana waliba ay leeyihiin kii hore waa ku xiis badan yahay waana ka action fiican yahay حتى wuxuu sameeyay NTR Sudan oo la sameeyay Birishanti ninkan wuu soo jeestay sanadkan inaba caadi ma lama qaban karo. dhanka kalena VK Kushan iyo Sara Ali Khan filimkoodii Zara Bashkan ayaa toddobaadkan u noqotay toddobaadkii ugu wanaagsanaa sababta wuxuu gaari rabaa hid dhameystiran wax yar ayaa ugu dhamaan inuu gaaro hid dhameystiran sababtoo filimka markii hore lama filin intaan lacag inuu soo xareen doono waliba uu gaari doono heerka maanta uu taagan yahay haddii isbuucii soo socdana filimkan uu is celiyo teatarada oo sii saarnaado lacag kale oo soo xaray wuxuu noqon doonaa hid dhameystiran waliba lagu faani karo taasoo dadkan ku noqonayso mid la yaab ah. inta badan dadka filimkan way garab istaageen siyaasadii ahaadna hal ticket qaado oo markii hore lagu bilaabo maadaama filimka aad loo yeesayay waxa lagu bilaabay in la dadka hal ticket qaata hal ticketna gata kaasi waa uu shaqeeyay waxay noqotay dadka dhan inay ticketka wada gataan lacag fara badan oo soo xareeyo meeshii looga baahnaa marka si fiican uu gaaro uu guuleysan raba mar dhow. dhanka kale haddii aan fiirino filimka Animal oo wada Ranbir Kapoor filimkaasi ay qayb qaadanayaan dad fara badan sida oo kale Anil Kapoor oo jilaya asaga aabihiisa filimka tuug ugu weyn ama Blader oo ku noqon doono ninka lagu magacaabo Baby Doll. sidoo kale filimkan qaybta tirshada waxa ka jilaya Berinita Jabra. Animal waa filim inaba aan caadi ahayn sidoo kale filimka sheekadiisana aad ay u gadantay Ranbir Kapoor waxa uu noqonaya Anil Kapoor waxaana dil doonaa Baby Doll asagana argudasho ayuu u soo bixi doonaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena maanta haddii channelka cusubta fadlan subscribe adigoo mahadsan.